soo dhawaada ala soo dhawaado wararkii ugu dambeeyay ee doorashada ayaan rabaa inaan idin la wadaago maqaaxidii baan si toos uga jiraa waa u jeedaan caawa la seexan maayo ninna xoolo doonaya oo ninkii xildhibaan ahaa caawa codkiisu waa lacag nin waa dulaalaya nin warku sida waa shiina culay nin dhagta taagan waa adiga nin wadnuhu farta ku haya waa musharax maalna inuu bixiyo waa rabaa masarna inuu helo waa rabaa laakiin ay waxa joogtaa markuu labadaba waayo maalkiina dhaafo masabkiina waayo marka wararkii ugu dambeeyay baan rabaa inaan idin la wadaago arinta warka ugu culus oo aan hadda idin la wadaagi karaa waxa waaye lafta gareen inuu ka goostay farmaajo xildhibaano kudlad ah oo kamida koonfur galbeed oo majority ah oo uu hogaaminayo gudoomiyihii maalintii dhooyto laga guuleystay ninkii la oran jiray xasan oo wasiirka ahaa ninkaas wuxuu u galay dani isaga iyo kudlad uu wato waxa ay ka soo shaqeeyeen kulan inay wada qaataan madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo dani oo musharaxa kulankaas goor dhoweyd buu soo idlaaday xildhibaanada xasan hogaaminayo oo kulanka goobjoog ku ahaa kana soo shaqeeyay waxa ay ka dalbanayeen lafta gareen in farmaajo doontiisii ay digtay sidaa darteedna inta goor tahay inay ka degaan oo musharaxiinta kale ay wax la dhistaan si aysan cidlo ugu soo dhicin kulankaas isfahan weyn baa laga gaaray saan xogta ku hayo laakiin heshiiska rasmiga ah ee dhacay weli xogtiisa ma hayo waana idinla soo wadaagi doonaa kulankaas waa soo gabagaboobay musharaxiinta ilaa ay hadda waxaa la ogyahay afarta musharax ee wareegga koowaad ka soo gudbaya oo kan labaad imanaya afarta musharax waxay kala yihiin waa iska cadaan waa waadix waa farmaajo waa ninka la yiraahdo xasan cali khayre waa ninka la dhaho xasan sheekh maxamuud iyo dani afarta musharax inay wareegga koowaad ka gudbayaan waa caddahay doorashada waxa kale oo cad farmaajo si kasta uu wareegga koowaad codad badan u helo inuusan wareegga madaxweyne noqon doonin oo washanti lagu qaadi doono sidii caadada ahayd xildhibaanaduna inta uu wareegga koowaad helo aan waxba u kordhi doonin wareegga labaad ka saddexaad inay wax ka dhacaan maahay marka saddexda musharax ay kala ah xasan sheekh maxamuud xasan cali khayre iyo dani oo iyagu wareegga labaad u gudbi doona baa maxaa ku yiraahdaa doorashada tan madaxweyne ku soo bixi doona nasiibkana waxay u kala heli doonaan hadba sida ay u kala cod badan yihiin ninba ninkuu ka horeeyo waa ka jaanis badnaan doonaa marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waxa weeye lacag bixintii baa goor dhow bilaaban doonta waa la isu jaakirayaa lacagta ugu badan oo aananu ilaahay hadda ogahay waa 100,000 weeye 100,000 baa u badan intaan ogahay
boqolkun baa maaragtay musharaxa ugu badan hadda jooga marka waa la isu jaakirayaa nin walba wuxuu rabaa inuu ogaado musharaxiinta kale waxay bixinayaan si uu ka badan u bixiyo xildhibaanadu waxay ka cabanayaan magaalada isu socodkeeda xoogaa in la adkeeyey taasina ay ku adkaan doonto inay dhowr musharax isu soo gacan mariyaan musharaxiin xildhibaano badan oo waxaa jira jecel musharax kasta inay u tagaan oo ay wax ka qaataan marka boqolkuna u badan intaan ogahay ma rabo inaan maaragtay xogaha galo waxa weeye kowda habeenimo wixii loo gaaro bay lacag bixintaasi bilaabanaysaa sababta ilaa iyo hadda lacagta aan loo bixinna waxa weeye musharaxiinta mid walba wuxuu rabaa inuu ogaado kan kale wuxuu bixinayo sidoo kale xildhibaanada laftigooda in waqtiga laga ridaa la rabaa haddii hadda loo bilaabo lacag bixinta waxay helayaan waqti badan oo ay musharaxiin badan ugu tagaan lacagtuna waa ikaaro musharaxba maxaa ku musharaxu ka dambeeyo hadduu ka lacag bato xildhibaanku kaasuu ka aadaya marka saas darteeda loo bahalkeynayaa waxaan ognahay oo kale taabic cabdi inuu codsaday inuu tanaasulayo haddii loo celinayo odayaal beeshiisa u tegey wacaysle waxaa la yidhi dad badan baa ka tartamaya marka waxaan kuu soo jeedinaynaa sida habargidir ay cabdiraxmaan cabdishakuur ay ugu tanaasuleen oo laba xildhibaan ugu tanaasushay inaa adigana tartanka uga harto wacaysle rag badanaa ka sharxan taabid wuxuu codsaday 40,000 in loo celiyo si uu tanaasulo sidoo kale cosoble oo xoogaa lacag haysta baa laga yaabaa inuu 20,000 bixiyo laakiin odayaal beeshiisa ah oo goor dhaweeto shir la galay waxay u soo jeediyeen inuusan lacagtiisa iska khasaarayn ee uu haysto waa xogahan hayo cabdikariin guuleed wuxuu si toos ugu biiray ololaha cabdiraxmaan cabdishakuur isaga iyo waxa uu tanaasulay ninka la yiraahdo doctor cabdinaasir laakiin waxa la yiri maxaa ku laba qaawal isma qaado cabdinaasir iyo cabdikariin guuleedba codadka ay haysteen ayaa shaki la gelinaya cabdikariin guuleed waxa la hubiyay inuu haysto codka xaaskiisa oo kaliya marka ma garan karno cabdiraxmaan cabdishakuur goor dhow hadli doona laakiin sida maartay aan xogta ku hayno afarta ugu codadka badan oo wareegga koowaad u gudbay kuma jiro inta xogta ku hayno waxba isbedeli doona beeshisa lacag badan buu ka helay inta uu bixiyana wax badan bay maamuli doontaa lacagta uu huro campaign manager waxa uu noqday cabdikariin guuleed baa uu noqday sidoo kale cabdikariin ninka la dhaho cabdiraxmaan cabdishakuur rajadiisa waxa wax badan ka bedeli doona 6 xildhibaan oo beesha habargidir ka tirsan oo xasan sheekh maxamuud la fadhiya si uu ugu qanciyo inay u soo wareegaan odawa baa kamida mahadsanaad baa kamida waxa kamida ninkii la oran jiray maxaa sabriyami aha baa kamida raggaas siduu u soo maxaa ku radaa u soo xira gashado rajadiisu waa ku xirnaan doontaa marka ilaa iyo hadda intaan hubno waa afarta musharax baa wareegga koowaad u gudbaya farmaajo xasan cali khayre xasan sheekh maxamuud iyo deni shariifka waxaa la sheegayaa konto buu mar loo qaybinayaa xogta saa ku hayo ولو حلبانada uu konton ka siinaya aysan badnayn oo konton xildhibaan la leeyahay 2,500,000 buu goor qaybinaya marka ka hor dhicmeeno doorashada konton wax ka tarmeyso 2,500,000 wareegga koowaad iska dhaafe waxa weeye xildhibaanada aanan u jeedo oo boqolka iyo labada ay ka hadlaya konton waa caana ku cab wax tari maayo ragaan ogahay wallahi konton wax tarayn shariifku haduu hayo jeebka cad dib u geliyo haddii kalena kontonkiisa ilaahay buu leeyahay kole dad baa maad kole taageerayo ka soo qaaday jeebkiisa kama soo wada bixin marka doorashada halkaas ay maraysaa xaaladdu halkaas ay maraysaa beejka isha lagu hayo maqaaxida isha lagu hayo caawa dhalay baan ahaan doonaa waagaan baryeena musharaxiinta la soo jeedeena nin waa idin sheegay waa xildhibaan xoolo doonaya caawa wareegaya nin waa musharax maal buu la diyaar yahay masab buu doonaya inuu iibsado nin warbu sida waa shiina culay iyo wixii la halmaala layfa caawa dhanaanaya nin ama qof kale dhigta taagan waa adiga caawa soo jeed baa inoo balana inagu dilacag helmeeno xildhibaanadaas ilaahow xaaji uunlaayo xoolasi aan ka xoogsaday miyay ahayd ya ilaahow xaajiga xoolasi aan ka xoogsaday inagu waxay taagannahay ilaahow musharaxiintaas maaragtay xildhibaanada wax siida waxay loo soo turtuureen ilay nin walba nin baa mitale marka wararkii ugu dambeeyay waa ka deni haddii lafta gareen heshii kulankii hadda goor dhow baa leef soo gelayaa oo wixii lagu heshiiyay haddii heshii jiro haddii kala midna wadaagaya deni haddii lafta gareen caaw ay heshiiyeen oo kulankaasi heshiis ku soo dhamaaday oo xasan iyo kudladiisu ay deni u gasho deni waxa laga qaban karo cilkaas Soomaaliya bal waa arki doonaa hal la isla socdo hal la sii sheer gareeyo hal isla socdo waa maqaaxidii shiina culay oo leefa مقاحيدي والله فواي عاود الله يفكاسي عانسا
وحيرك بعد ما صون قرية آد بقى مهزتين ومقاحيد الشينوع لويه وربان يدين دونيا إن شاء الله تعالى اختلاف كنا كور دو تجيا وأوجدان والله قلبتها سوقدي والله قلبتها سوقدي وأوجدان دور شذا أو سوقدي هذا كاسا كور دو تجيا وأضي واقعي قلبته واقعي أضي والله دور شذا أو سوقدي وحكي فايد معي مركب وايدين وردو تجيا هلا يسرس على دني بانكو رينا كلك وح وكسه هلي بس هو قال إن عاو مدحويني هالك إنه أقبل سحننا وايد السلامي